السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقاليد ميل كستو جوجتان آدان إي سلامية runtii ciwaanka sheekada markaad aragtaan aad la yaabisaan balse waa sheekada ugu dhacday sheekadana waxay ku saabsan tahay nin la yiraahdo Joseph wuxuu ku noolaa waddanka Austria qoyskiisu waxay ahaayeen qoys faqiiriin ah aabihii wuxuu ka mid ahaa ciidamadii galay dagaalkii labaad ee adduunka kadib aabihii ciidan waxa xidhay ciidamadii Suufiyiinta markuu dagaalkii labaad adduunka la qabtay waa la xidhay hooyadiina waxay ka mid ahayd qolihii ka soo horjeeday Hitler kadib hooyadiina waa la xidhay Joseph soo haray isagoo yar waxa la geeyay meeshii lagu kariyo carruurta agoommaha kadib waxaana loo sheegay in hooyadii dhimatay kadib wuxuu soo baxay markii uu soo dhamaystay wuxuu ogaaday in hooyadii nooshahay kadib uu soo baxay hooyadii bay saarkeen hooyadii marba way qaraaci jirtay madax xanuun ay ka soo qaaday jeelkii uu Hitler ku xidhay kadib Hitler markuu weynaaday waxa la geeyay markuu ka soo baxay meesha waxa lagu daray iskuul isagoo 16 jir ah waanu ka waaweynaa ardaydu la dhigan jiray iskuulka ay isku fasalka ahaayeen kadib waxbarashadii uu watay magaalada joogi jiray isaga tagay magaalo kale uu qabtay soo shaqaystay magaaladiisii hore ku soo noqday guri uu dhistay xaas uu guursaday kadib xaaskiisii waxa uu dhashay 7 carruur ah 7 carruur hayda waxa ka mid ahayd gabadh la yiraahdo Elizabeth gabadhaasi runtii waxay ahayd inaan akhlaaq fiican oo aabaheeda ixtiraamaysa laakiin isagu markasta uu dili jiray uu qaraaci jiray markii xaaskiisu weydiisay la dhaho ay ku tiraahdo maxaad inantan aad sidan ugu yeelaysaa wuxuu odhan jiray yaa sabab baa inantaa u dhacay kadib maalin bay baxsatay waa la waayay booliskii aabaheed iyo hooyadeed ku yidhaahday ayay u sheegeen inantii waa la soo diidiyey waa la soo helay Joseph gacanta loo soo geliyey kadib markii loo keenay ayaa wuxuu ku yidhi maalin dambe ku qaraaci maayo aduu muddo kadib baa Joseph wuxuu sameeyey in inantiisii uu yeedho isagoo maalin ka shaqaynaya gurigiisa xagga hoose kadib gurigiisa xagga hoosena wuxuu ka sameeyey god buu ka qoday qol buu ka dhex dhisay aduu inantii buu u yeedhay xaggii hoose timid maruu sanka kaga qabtay sumay uu sunku soo mara sumaysan buu sanka kaga qabtay kadib waa suuxday markii suuxday qolkii godkii iyo qodkii uu geliyey halkaasay ku jirtay kadib uu kubsaday markuu kubsaday kadib inantiisii uu kubsaday waa sheeko dee waa xaqiiqo waa sheeko jirto dhaba kadib muddo 9 bilood kadib ayaa inantiisii baa qaatay uur qolkana wuxuu soo dhigay wax kasta u baahan tahay hadday noqoto jalaajadii aduu cunto iyo wax walba uu soo dhigay kadib muddadii 9 bilood kadib markii dhamaatay ay day soo dhawaatay in dhasho wuxuu u keenay buug ay ka akhrisato sida la iskaga umuliyo maqas uu keenay marooyin kale si qabto keenay kadib waxa dhacday in iyadu halkii iskaga umuliso waayo meesha godka kama soo bixi karto albaabkana wuxuu ugu xiray koronto hadday ka soo baxdo oo saa ugu dhageysatay waa aduu dhimasho waxay doorbiday inay iska noolaato halkeedii ku jirtay muddo kadib ilmihii labaad dhashay kii saddexaad dhashay kii saddexaad ayaa wadnaha laga hayay wadna xanuun buu qabay kadib wuxuu ku tagay aabihii dhakhtarkii uu ka ogolaaday wuxuu sameeyey warqad buu qoray gurigiisii buu hordhigay wuxuu ku soo qoray hooyo iyo aabbo waxaa dhashay inantii Elizabeth ilmahan ma korin karaayo ee ii koriya kadib xaaskiisii waa qanciyey waxaanu ku qanciyey inay korsadaan dowladdii bay u tegeen waxa adoption la yiraahdo ay sameeyeen oo ah inay iyagu dhaleen oo kale iyaga isku qoray kadib saasi ku haysteen ilmihii labana xagga hoose ku jiraan labana midna wuxuu ku jiraa xagga sare ay ku noolyihiin labana waxay ku noolyihiin xagga hoose guriga kadib muddo kadib haddana waxay dhashay mataanihii mid ka mid ah soo qaaday sidii oo kale xaaskiisii uu qanciyey adoptionkii laakiin may samayn waxay sameeyeen inay iyagu iska korsadaan oo dowladuna lacag ku siiso kii hore iyaga ilaa magacooga isku qoray lacag lama siinaynin kan laakiin si ka labaad bil walba lacag ku qaadanayaan wayna korinayaan kadib muddo kadib haddana ilmo kale dhashay ilmihii kale haddana soo qaaday gurigii ilmihii saddexaad haddana soo qaaday gurigiisuu keenay ilmihii haddana kadib muddo kadib haddana ilmihii 7aad dhashay ilmihii 7aad
markii dhashay ayaa waxay aabaheed ku tiri aab waxaan u baahanahay inaad guriga noo ballaariso kadib wuxuu ku yidhi waa sax laakiin shuruuddan idinku xidhiya waxa weeye inaad idinku guriga ballaarsataan kadib iyada iyo carruurteedii ayaa qoday gurigii god kalay samaysteen adoo qol kale dad ku noolaadaan Elizabeth dadaal bay samaysay carruurteedii halkaa xisaabaadkii wax walba way ku bari jirtay muddo kadib inan kalaa xanuunsatay oo inanteedii u dambeysaya kadib waxay ka codsatay aabaheed inuu dhakhtarka geeyo saddexna xagga sare joogaan saddexna waxay joogaan xagga hoose kadib dhakhtarkii uu geeyey waxaana kadib markuu dhakhtarkii keenay ayaa waxa la sameeyey in computerkii magaceedii la geliyo waayo magaceedii waa laga waayey meelay ku dhalatay dee la garan maayo booliskiibaa wuxuu isaga hadlay wuxuu ku yidhi hooyadeed baa u sababa mar walbay dhashana halkaasay soo dhigtaa macquul maaha baa layidhi waxay sameeyeen dhakhtarkii wuxuu sameeyey ciidamadii baa loo yeedhay kadib ayaa waxaa telefishinada lagu soo qoray Elizabeth dowladda ayaa ku doonaysa dhakhtarkana kaalay kadib telefishinkii ay godka hoose ku isticmaalayeen ayaabay ka aragtay fariinta waxay aabaheed ka codsatay in la kaxeeyo inuu ilmaheeda soo eegto kadib aabaheed wuxuu ku yidhi dhammaantiin wada bixi karaysa kadib xaaskiisii ayaa wuxuu u sheegay in gabadhiisii soo noqotay oo la helay kadib carruurta sii hay iyadana waxaa la geynayaa iyaduna dhakhtarkay tegaysaa kadib Elizabeth markay saa soo baxday dhab askar baaba qabtayba waa la qabtay askartiiba qabtay way wareystee sababtaisna u dhacday sheeg bay layidhi waxay tiri bilaa sabab bay ku dhaceen macquul maaha baa layidhi sheeg sababta way sheegtay kadib waxay tiri bal ii sheega wax laga ballan qaadaan aabbahay inaanan mar dambe aanan is arkaynin kadib waa loo ballan qaaday inaanay mar dambe aabaheed is arkin waxay u sheegtay in aabaheed uu ka dhalay 7 carruura kadib waa la yaabay booliskii maalintii labaad ayaa waxay tegeen gurigiisii markay tegeen ayaa waxay soo arkeen qolkii hoose ee ay ku noolayd 24 sannadood 24 sannadood ayaa waxay ku jireen god hoose oo qol laga dhisay kadib Joseph maxkamad baa la keenay waxuuna ku dooday in isaga iyo Elizabeth ay raali ka ahaayeen waxa uu sameeyey kadib macquul maaha baa layidhi kadib wuxuu qirtay dembigiisii inuu isagu waxaasoo dhan sameeyey kadib waxaa lagu xukumay xabsi daa'im maadaama uu waxaasoo dembiye sameeyey oo uu inantiisii u tegey oo uu badbaadi waayey ilmihii yaraaya kale ee meesha godka dhexdiisa ku dhintay ugu dambeyn Elizabeth maantadan hadlaya anigu iyada iyo carruurteedii meelay ku nool yihiin la garan maayo dowladda qaaday waxaa la barayay sidii ay ugu noolaan lahaayeen nolol fiican waayo 24 sannadood bay god ku jireen habeen iyo maalin way kala aqoon roobka way ka baqayeen adu wax kasta dee wasay garanaysaa qof godka hoose ku jira xataa dhaawac baa soo gaadhay dhabarkoodii markii waayo meeshu god yar bay ahayd ma istaagi karayn sidaa weeyaan sheekaduna intaasay ku eegtay maanta saacadda qaaliga waxaan ka codsanaa inaad subscribe iyo like iyo share toona uga caawisaan intaynu ku kulmino barnaamijka waxaa la leeyahay